بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة دقيقتيال كسر دواده مركل برنامج كيني قالن يقرال وهذا هنقول كدعوتان مغهل باياشا قرنكا دعوة ديال تضبط كم برنامج كيني قالن يقرال وحو إذا كجا إمارة يا حرون تدحى مقال باياشا قرنكا مقالة مقدشة تضبط كم برنامج كيني قالن يقرال وحن كسر قادم دونا buugga lagu magacaabo carabnimada Soomaaliya iyo ilbaxnimadii Islaamka buuggaas ayaan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa buuggaasi ayaa waxa qoray qoraa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Saylici oo ah bara jaamacadeed ayaa toddobaadkan marti iigu ah barnaamijkeena qalin qoraal oo isagoo qoray sidaan hore idinku sheegaba daawadayaal carabnimada Soomaaliya iyo waliba ilbaxnimada Islaamka qoraa Cabdiraxmaan ama Ustaad Cabdi Saylici ku soo dhaw horta barnaamijka qalin qoraal iyo muqalbahayaha qaranka ugu horeyn bal horta intaan u guda gelin adigoo dulmar yar noogu sameynaya Ustaad Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Saylici horta yuu yahay xagoo ku dhashay waase backgroundkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantihiin TV-ga qaranka gaar ahaan barnaamijka qalin iyo qoraal waana ku dhowahay Cabdiraxmaan Saylici waxa waaye ku dhashay Hargeysa ku soo barbaaray waxbarashadiisa sare iyo jaamacadeedna wuxuu ku qaatay Muqdisho kadibna waxaan tagay dalka Masar halkaasaan waxbarashada sare ku soo qaatay mudana soo joogay waxaan ahay dadka xogaa daneeya qoraalka iyo akhriska berigii hore wax qoristeedu waxay u badnaan jirtay artikalo ama aan ku qoro warbaahinta Soomaalida ama kuwa Carabta markii dambe ayaan waxaan u soo jeestay inaan wax ka qoro taariikhda iyo ilbaxnimada dalka Soomaaliya oo aan isleeyahay xogaa malaha waa laga sii yar jeeday weli cilmi baaristii iyo qoraaladii ayaan ku jirnaa ama jaamacadaha noqoto ama xarumaha cilmi baarista kale ha noqoto marka waa saas weyn dhow okay waa gartay marka Cabdiraxmaan Saylici inta aan u guda galin bar horta tirada buugaagta aad qortay iyo buugan hadda aan sida goonay uga hadlayno oo carabnimada Soomaaliya iyo ilbaxnimada Islaamka adduunyadu Soomaalidu waxay leedahay ama dhaqan ayaa jira wax la yiraahdo hidiraac waxyaabo dadku ay macnaha jiilba jiilka kale sida ay isu dhalaan la isugu gudbiyo marka adigu ka Cabdiraxmaan Saylici ahaan ma waxaad ka soo jeedaa qoys wax qore oo hore qora u ahaa ama fanka suugaanta inkastoo Soomaalida xilligii miyiga la wada joogay gabayada iyo suugaanta aad loogu fiicnaa ma waxa si dhaqan ahaan waan uga soo jeedaa qoraal ahaan sababtoo waxaan ka soo jeedaa qoys diineed marka macallin iyo sheekh soodeeba ma taqaanaa oo dadka inoo keediyay taariikhda dalka iyo waxaan soo marnay marka qoys diineed baan ka soo jeedaa marka ina sheekh baan ahay saasana marka muhiim gaar ah ilaahay dadka ku manaystina way jiri kartaa okay waa gartay taa markaan ka soo gudubno marka goormaad bilowday bal kuugu horeysay oo aad is ogaatay inaad wax qori karto aad wax qortay wallahi qoraaladu waxa igu horeysay aniga markii igu horeysay qoraal aan qoro waxay 97 wax bilaabeen aan qoro buugal kedis ah kediskaasi wuxuu ku saabsanaa ardaydan ugu talagalay macallin baan ahaa wuxuu ku saabsanaa yani ma ogtahay waxaas kale ama ma la socota oo ku saabsan macluumaad ku saabsan dalka waxyaalaha dalku caanka ku yahay waxyaalaha taariikhda ku yahay wixii soo maray dadkii soo maray wasaas camal ayuu ahaa kii wixii waxa 2005 baa tahriibku aad u socday aad loogu dhamaaday marka novel yar book novel aan ka qoray oo isleeyahay waa buugtii ugu horeysay ee ku saabsanayd xagga tahriibka buugaas waxa la yiraahdaa qurba jacayl min qabri u galay marka waa qaahira lagu daabacay meelo badan ugu yaala oo ilaa 10 jaamacadood caalamka library yaala Google Books ka mid yahay marka waa sheeko tragedy ah oo waa khiyaali laakiin ku saabsan dhibaatada uu tahriibku leeyahay oo ku saabsan gabadh hodan la yiraahdo
kaas waan sameeyey qoraalada kale badan aan sameeyey waxaa ka mid ah inkastoo qaar aanan daabicin ilbaxnimadii magaalooyinka ilbaxnimada ah ee geeska Afrika qaar ahaan Soomaalida sida Marka Braawe Muqdisho Berbera Saylac ilaa iyo Hirar kuwaas waxaan ka sameeyey waxaan kaloo sameeyey buug la yiraahdo xasuusta ama mataqaanaa qoraalka arday baan ahaa moogta xasuus arday buug la yiraahdo oo wixii aan la kulmay ama isaameeyey ama aan wax ka qori jiray xilligaa aan joogay oo iyagana buug isku geeyey waxaa jirta maadaama aan wadan Carabeed joogay oo aan aad u jecelahay waxyaalahan suugaanta ah ama sheekooyinka waxaan waayay sheekooyin ku saabsan af Soomaali af Carabi oo Soomaali qortay marka waxaan bilaabay inaan sheekooyin ku qoro wargeysada markii dambena buug bay noqdeen waxaa ka mid ah buug la yiraahdo maarinka geeska Afrika yani sheekooyinka ka mid ah waxaa ka mid ah Maandeeqdii Qaahira waxyaalahaas kala ah buug kale isna jira sheekooyin ah oo la yiraahdo sheeko gaaban waa sheekooyin ilaa 20 sheeko ka gaaban oo hal buug isku noqday oo la yiraahdo Caabilla iyana way jirtaa laakiin waxa ugu dambeeyay hadda aan qoray publish gareeyay oo yani la geeyay bandhigta buugta badan oo Yurub America kasta la geeyo ugu dambeeyay wuxuu ahaa buugan carabnimada Soomaalida iyo ilbaxnimada Islaamka oo taabacay 2018 okay waa gartay marka aan hadda toos u abaarno marka carabnimada Soomaaliya iyo ilbaxnimada Islaamka marka labada mowduuc marka aad fiiriso Soomaaliya ilbaxnimada Islaamka ku soo horeysay marka carabnimada aan ka tagno oo carabnimada aan la gaarin marka waxaan u tixraacaynaa sida aad u siisay ciwaanka buugga ayaan u tixraacaynaa carabnimada Soomaaliya marka buuggaasi maxaa ka qortay waxyaabihii la taaban karo aad ka qortay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahayd aan waxaan kaga tirsanaa ardayda cilbaarista ka dhiganaysay macadkan daraasaadka carabta badanaana inaga dhexdeena ama meel kale wax la isweydiiyo ma carab baan nahay mise maxaan nahay arrin taagan bay ahayd marka waxaan damay cilbaaris ka sameeyay oo qoraal ka sameeyay buug ka sameeyay Soomaaliya horta ma carab baan mise waan iska sheeganaa markii dambe waxay soo baxday dadku carabnimada waxa ay moodayaan abtirsi fulaan bin fulaan description-ka loo sameeyay dadka aqoon-yahanada Carabeed u sameeyaan carabnimo waxay tahay waa dhaqanka luqadda iyo wixii wada wadaaga inaga dadna Soomaali luqadda aynu isticmaali jirnay Soomaali ka soo Carabiga luqaddeenu waxaan jiray oo taariikhdan iyo ilbaxnimadan waxay ku kaydsan tahay Carabi kaydsan tahay inta far Soomaali luqadda Soomaali waxay ku qoran jirtay af Carabi masaajidada iyo malcaamadaha iyo meel walbana Carabiga waa lagu dhigan jiray marka arintaas waan guud galay waraysiyo badan dad waan la yeeshay dadku way ku kala duwanaan karaan laakiin waxaan ogaaday markii dambe carabnimada Soomaalida waa carabnimo la xiriirta islaamka oo xiriir la leh markii islaamku u yimid dadku af Carabiga ay noqotay afkoodii ummaddu isdhex gashay xuduud ma kala lahayn ayaa waxa dhashay isdhexgal bulsho isdhexgal taariikheed isdhexgal mataqaana dhaqan oo ka dhashay dad muslim ah oo carab ah oo ku nool geeska Afrika abtirsintu iyadu waa gooyo meeshuu qofku abtirsanayo dawaati ahaydna qof kasta af Carabi ku hadlaa waa Carabi yaa carab marka taas qaybta hore ahayd okay waa gartay marka wali midaan carabnimada Soomaaliya macnaha marka intii aad ku jirtay baaritaanka ama cilmi baarista aad sameynayso oo aad ku ogaanaysay mowduucan qaybtiisa hore oo carabnimada Soomaaliya marka laga soo tago ku hadalka luqadda iyo dhaqanka marka laga soo tago maadaama dal Carabeedna aad ku soo nooleed culimo kala duwan oo maxaan ku radaa caraban aad la soo kulantay carabnimada dhabta ahi ma dhalashay ku timaada mise waa sida dhaqanka loo wadaago Soomaaliya jirkeenu waa madow yahay luqadda Carabiga waa lagu hadlaa sometimes macnaha waa jiri jirtay xilli jasiiradda Carabta xisaab ahaan nugula tiri jiray marka maxaa kaaga soo baxay marka arrintaas oo carabnimada waxay soo baxay carabnimadu ma aha mid jinsi ah mid muuqaaleed iyo mid kala midna ma aha carabnimadu waxa lagu macnayaa dhowr shay
waa dad dal wada wadaaga yani dal juqraafiyada isku xiran kasoo qaadadana jaamacadda caraban ka tirsanay soo maha saasoo kale wadaaga dad taariikh wadaaga dad dhaqan wadaaga dad luqad wadaaga yani dadkaasaa la isku dhihi karaa carab weeyaan anaga taariikhdana islaamka taariikhda islaamka waan wada wadaagnaa afka carabigu inagumaha af ajnabi ya yani waxa weeyaan meel kasta qofka yani soomaaliga waxa ugu horeeya la baro waa alif bata quraanka waa taqaanada qof soomaalidu iyaga ugu horeysa carabta saxda yihi waa soomaalida haddii maanta la yidhahdo af carabigii saxda lagu hadlo culamada soomaaliyeed ee masaajidada ka akhrisa kutubta ama kutubihii ay soomaalidu qoreen u malayn maayo in la helayo haddaan dib ugu noqono daawinta carabta ah u malayn maayo culamada soomaaliyeed diiwaanada ay sameeyeen iyo kutubaha ay sameeyeen in laga helayo qof gaaraya marka waxa weeyaan waxyaalaha horta aniga ii geeyey inaan waxaan ka qoro dad waxaa jira waxbarashadu ay ahayd xagga galbeedka qofku maaha inay saameyso meesha wax kusoo bartay anugu ma kala jecel inaan afrikaan ahay iyo inaan carab ahay iyo inaan kan ahay soomaali baan ahay laakiin mid baan ku dadaalaya aniga dhaqanka aan leeyahay waa dhaqan islaam taariikhda aan leeyahay waa taariikhda islaamka afrika iyo geeska afrika iyo bariga afrikana waxa iftiinka ilbaxnimada iyo islaamka gaadhsiiyey waxay ahayn soomaali marka si aan taariikhda iyo hiddaha iyo dhaqankaasi una u lumin waa in carabigii uu taagnaado ma aha waa afkii marka dad baad arkaysaa af carabiga af faransiiska af maxaan ku dhahdaa ingiriiska simaya dastuurkeena dee luqadda koowaad af soomaaliya labaad carabi ay ahaan jirtay marka waxyaalaha ii keenay dad baan arkay isla carabka orda markaasay meel baas ku tuureen dadkii oo mataqaanaa inay faraacin baan ahayn iyo kushitig baan ahayn waa faraacin waan ahayn oo kushitig baan ahayn wax walba baan ahayn muhiimadda waxweyn meeshan aad ku nooshahay geeska afrika ama soomaaliya ilaa iyo nebi aadan way jirtay dad baa ku noolaa oo la soo dhexlayay ilbaxnimadu isbedelasay dhaqanku wuu isbedelayay laakiin kolba ruutiska yani dhaqankaaga uu ku xiriiro maanta waxweyn haddaan isdhaahdo carabnimo ka carab afkii tuura carabigaha kutubaha ma af ingiriis diintiyaaba halis ku diintiba halis ku jirta marka anoo carabnimada waa carabnimo islaamka la xiriirta si uu u jiro dhaqankii iyo taariikhdii iyo yani aanu ku lahayn soomaalidu waxay moodayaan mataqaanaa inay iyagu mataqaanaa wixii carabta soomaalidu waxay dadkii carabiyeeyey afrika ee islaamiyey afrika ee magaalooyinka caanka ah ilbaxnimada maanta yani loo fiirsan karaa shumaca ah waxaan soomaali baa samaysay ilaa ay xaggan asia u kac maldivia sri lanka ilaa ay mataqaanaa jasiiradahaasi waxaan soomaali baa gaadhsiisay مثلا هندية يعني وحوين دad waxaan ahayn ilbaxnimada dad waxaan ahayn diinta ku dhagan dad waxaan ahayn ilaa maantana ay Soomaaliya yihiin marka waa shacab Ilaahay u doortay diinta ilaaliyaan marka in lagala ordo dhaqankooda taariikhdooda okay markaan qaybta labaad buugga oo ah ilbaxnimada islaamka markaan u soo gadalno ayada maxaad ka tiri buugga aad uga sheegtay waxaan uga sheekeeyey waxyaalo badan waxaa ka mid ahayd islaamkii horta markii uu soo gaaray africa wuxuu soo gaaray xilli hore yani waxa weyaan qarnigii koowaad ee hijriga bartamihiisii hore ayuu islaamku soo gaaray waxaa dhismay saldhigyo ama magaalooyin ay muslimiintii geeska africa ay saldhig u ahaayeen waxaa ka mid ah magaalada zeyla inkastoo zeyla ay tahay magaalo qadiimi ah oo intaas yani dhowr kun sano jirta laakiin waxay nagu soo gaadho si caan baxday markii islaamku yimid waxay ahayd meelii asxaabta kasoo degeen ilaa in gudaha marka waxaa ka mid ahayd waxyaalaan kusoo qaatay in dadkii geeska africa markii ay islaamka qaateen inay magaalooyin saldhiga samaysteen inay samaysteen boqortooyin inay samaysteen ciidamo inay samaysteen waxaan dee dunyadu ku nooshahay wax kasta u baahdeen in ay soo saareen culumo intay iyagu dhulkii ka tegeen oo ay tegeen meelo kale cilmi iyo diin iyo aqoonba gaarsiiyey صح taasaan kusoo qaaday okay waa gartay macnaha marka aan fiirino marka Soomaaliya
hadda kulley inta anigu ogaalkayga ah inkastoo Soomaalidu la yiraahdo waa reer Qansax reer Qurac reer Sarmaan reer Jeerin reer Dhanfaruur reer Dharkeen iyo reer Sarmaan iyo waxba la kala saaraa laakiin kulley anigu shakhsiyan qof ahaan ma aaminsani Soomaali waxaan aaminsanahay fikir ah in reer Qurac tahay bas oo adoogii Soomaaliga ahaa ilmihiisi la inay yihiin laakiin waxa la kala fitaatina anigu ma aaminsani okay marka aad fiiriso marka Soomaalidu ilbaxnimada islaamka marka la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ilbaxnimadii marka ay soo gaartay oo ay qaateen anigu kulli hadda marka aan Cabdullaahi hebel marka aan dhaho magacayga dambe anigu ma laga helayo inta aan ka aqaano magac ka baxsan magaca islaamka ama magaca traditionalka Soomaalidu ay la baxdo sida macnaha Faarax Meegaag Samatar waa magacii oo dhaqankeena ahaa laakiin Maxamed Uthman Ali waxa way magacyada islaamka marka saas anigu aan u qaado magacayga qof Soomaaliya maanta ma u maleynaa inuu ku jiro wax ka baxsan labadaas magac marka aad fiiriso Soomaalida markii islaamka uu yimid oo ay qaateen buugga ma ku ogaatay qoritaankaagii bal Soomaalidu siday diinti ay u gudbiyeen siday diinta u qaateen intay u gudbiyeen ilaa intay gaarsiiyeen culimada Soomaaliyeed inay macnaa ilbaxnimadii ayaga islaamka ay qaateen intay gaarsiiyeen ogaan loo caasa buugga ma ku ogaatay inta wax qoray ها وكوغادي horta inta seetadan hore uga dhaco wadankan taariikh aad u dheer buu leeyahay 10 sano taariikh ah ayuu leeyahay waa dhulkii uduga waa dhulkii ilaahyada waa dhulkii ilbaxnimada waa dhulkii ay ka soo bilaabantay qalfoofka adduunka ugu facaweyn leh waa meelaha laga helay aasaartiisu way jirtaa magacyo kala duwan oo fara badanna uu soo maray بلا وطن كيبونتي وطن أزانيا وبديهن ودوك بخورك شدت قناعسي عالم كيسكو حرها ولا هنشري صح تدكو ساسا وطن كلو صنعنا مركز الإسلام كيبي أنا على نبذ يمقص السوق بن فلان بن فلان بن فلان صح مش ضد كوابترس لكن حوالي رقم البحنمة إسلام عربي وصل لقطعه إمك كوري يعني قرنية الدحام قرنية كسوري أما وايد ويد كل كستو الصومالية تكتيب بوك فرقوري يعني أما تاريخها هذا أما أحكالها هذا أما علم أفيدها هذا أفعالي قرنية وقري مالكستو أقل الصومالية مية مقالبة ويالا لكن بوك وقرن لاتين بركا رقنك حيالها الصومالية الإسلام لماذا اللوسو قلوا واي وحكمية داد كل رقن كودا داد كان يبركي هورتا هورا waxay ahayn dad ka go'san yani diin kale ma haysan Ethiopian darisnahay Yahuud baa soo martay Kristan baa soo martay wad kana sa jaashi iyo soo maray sax dadkani dad fitra ahaayeen Soomaalidu islaamku kuma soo gaadhin seef iyo waxaas dad markiiba qaatay ahaayeen lamana fariisana way la socdeen hadda la socotid dhulka shawala yiraahdo Ethiopia سيدي بورها وحي كسوكايا وحي هاين وضع إسلام صح لا مقالين كقديم كتاريخ ذا حتى لو كاين نجمع كوجرا حكم ذا حرب وحي برد بس مستيد ولا يشوري هذا حرب ركله عاصمة الصومالية وكون سنة عاصمة الصومالية وحلوك سنة مقالات أفراد العالم كأو يعني حاجة تقديسك أما وجود محل لها هول الستي وين حكوا سمستي معجزة جيسك أفريقيا يدي سد مالي أو كلام قالت تنبكت الله تنبكت زعم وبقر كي منصب موسى تنبكت دي جيسك أفريقيا حرب به الصومالي والإستي صح مقالين بدن اللومي ويشرن مركا الصومالي دولة مركا waxay ka jirtay buurleyda shawal laga soo bilaabo wasawa ilaa iyo malind iyo kilwa intaasi isku fadhiyeen waxay gudaha Afrika yani Afrikada bariyo dhan waxa diinta geeyay waxay ahaayeen Soomaalida ahaayeen shakhsiga Kooneen culimadii ugu horeysay kamid ah oo markii dambana alifbeedka halkan Carabiga Quraanka ku barana Soomaaliya alif kurbi alif loostabi waxa uu ahaa meelo badan buu geeyay
sanaare u sheegay eeshiyadan isagaa diinta geeyey ilaa madqaskar iyo jasur qumar iyo malaawi iyo maxaa ahayd uganda iyo suudaanta meelo badan ay islaam geeyeen marka aad dib u fiirisid culamadii islaamka waxaa jira culamo magac baa berigaa jiray magacan soomaaliga xilli kalu samaysmay waddanka waxaa loo yaqaanay saylac waa harkasa jamaaluddin saylici cusmaan saylici hebelo saylici waxaa kaloo imaaradihii jiray baa lagu magac diri jiray waxaa jira hebel maqdashi oo fara badan oo yamanta iyo taariikho badan kule oo ilaa andalusia iyo malaysia iyagana mataqaanaa ay wax ka baran jireen magaalooyinka hebel baraawe yani dad saas ah ayaa yimid kumeen ekaan afrika iyo geeska afrika xagga carabta ayay xitaa markii dambe noqdeen buug baa jira oo la yidhaahdo doorkii culamada saylac ee faafinta islaamka oo jaamacat alqaahira yaala marka dad waxay ahaayeen firfircoon markii dambena waxaa dhacday boqortooyada xabashida ka hor timid dadku waxay yaqaanaan dagaaladii mataqaanaa saliibiyiinta ee ka socday shaam iyo masar iyo meelahaas dagaalka ugu khatarsan ee labaad isdhihi karno saliibiyiin buu ahaa 500 sano socday geeska afrika socday waxa la mari waayey ee la jiri waayey ee mataqaanaa taagnaa waxay ahaayeen dadkan ilaa maanta taagan oo 500 dowladood mataqaanaa isticmaal ay isugu tageen ilaa maantana islaamnimadoodii dhaqankooda haysta marka saas okay waqtiga barnaamijka oo nahay gabagabada oo la joogo carabnimada Soomaaliya iyo ilbaxnimada islaamka marka aad fiiriso marka aad isku soo duubto way aragnimadaadii Soomaaliya inta aad ka tagtay iyo dadka inta aad ka taqaanay dib i gud marka joogto qaab dhaqankeena Soomaalida marka la yiraahdo inta aad wax qoraysay wax isbedela oo magacan Soomaaliya carabnimadeeda iyo ilbaxnimada islaamka marka aad fiiriso bal iyo bulshada qaab dhaqankeeda marka aad fiiriso ka qoraha ahaan maxaad is leedahay magacyadan aan wadano iyo dhaqankeena way ku kala duwanaa karaan oo wax isbedela bulshada marka aad fiiriso wax isbedel uma dhaxayaan laakiin waxaan isbarbardhigay dhaqanku is saameeyaa sax Soomaaliya dowladaha dariska la ah marka xagga dhaqanka suugaanta wax walba eegtid lama wadaagno waxba sax laakiin marka Soomaalida gabayadeeda heesaheeda dhaqankeeda qaabka bulshadu u samaysan tahay mataqaanaa structure-ka ah u samaysan tahay markaad eegtid carabta waxba kuma kala duwanin marka gabayadii cantara bulshadaad iyo mataqaanaa imrul qays iyo zuhair aad eegtid kuwa Soomaalida mataqaanaa gabayaasha hore Soomaaliya soo maray afkunba kala duwan mooyaane dareenka waa isku mid maamahaya waa isku mid dhaqanka xaggan ilaalinta abdirka iyo maxayga iyo reeruus u samaysiin isku mid baan ka nahay maanta dadku carab marka la yidhaahdo wadaad qamiis cad xidhan oo cigaal xidhan oo halkaa jooga waxaas yaa adduunyadu way isbedeshay ma fahantay dadka indhaha yare Indonesia ku nool iyo Malaysia asalkooda qaar baa xadaarimo ahaa laakiin maanta waa indha yar waxaa laga yaabaa mataqaanaa iyaguba dadka carabta turki iyo bershiyankii waxa weeye laakiin anigu muhiimadeydu ma aha muuqaalka iyo abtirsiinta iyo waxan waa dhaqanka iyo taariikhda iyo afka intaas waa leenahay waxa doonta ilaahay ma ahaatid afrikaan ka yimid meesha dumaysa dad dhaqankaaga taariikh haystid waxa sameeya abtirka qofka waa dhaqanka iyo taariikhda iyo afka ayuu qofku leeyahay haddaad dhaqanka iyo afkii taariikhda ka tagtid waxba ku tarmayso dad carab quraysh ahayd laakiin aad dhaqanka iyo afkii taariikh ka tagtid waxba ma tihid haddaad afrikaan asal ahayd laakiin dhaqan iyo taariikh iyo af aad haysatid marka waxweyn waa dhaqanka iyo taariikhda iyo afka waxa sameeya ummadnimada iyo jiritaanka okay marka aad fiiriso marka buuggan aad qorto oo magac dartay carabnimada Soomaaliya iyo ilbaxnimada islaamka marka aad fiiriso maxaa macnaha aad isleedahay inaad ku gudbiso aad rabtay oo macnaha aad oo inuu gudbo oo bulshadu ay ka faa'iido bulshadu waxay dareen buu waxay ugu dhashay maadaama aan arkay dad badan oo xagga carabnimada ka sii ordaya anigu buugii waxa qoraalada waxa ka muuqda war cidda doontida hawl laakiin maanta qof Soomaaliya oo muslim tahay muslimnimadana waxay ku jiraysaa
sad af Soomaaliga iyo af Carabiga aad u haysatid abtirsiintu inkastoo markaan daraasad sameeyay aan waayay qof aan raado bal abtirsiintaada yaa kii yiraahdo taqaana Carab manihin waa sax abtirsiintaada ay gashaa waa waayay Soomaalida qof yiraahdo abtirsiinteenu halka ila aada sad wadid kulli xaq laakiin anigu ma yifhimani ima qosayso qofka abtirsiintiisu laakiin waxa qosay dhaqanka in Carabigooda iyo taariikhdooda sababta hadii aynu ka tagno xagan dhaqanka lumay kaalinta aan ku lahayn Afrika ayaa lumaysa dad shireen ah hadda kitaab kala aniga wada cilmi kala oo ahayd Land of Gods dhulka ilaahiyada oo 10,000 oo sano mid diraaniga inaanu faraacinada asal waxaan aaminsan article aan qoray ma komisaarada isku haysanay in ilbaxnimada islaamka ay ka ilbaxnimada faraacinada ay ka bilaabantay Soomaaliya in dhulkii ugu horeeyay aadan iyo ambiyada Soomaaliya waa geeska Afrika qoraal noocaas waan leeyahay oo ah inay ahraamaadka laga bartay halkan sanaag iyo marka tagtid dhulka maartay ahraamaadka dhismahan iyo ilbaxnimada faraacinadu waxa keenay halkan ay ka dhalatay marka fiirsid archaeological iyo anthropological halkan bay ka tageen ilbaxnimada qaar dad baa yiraahdo wax ka timid xagga iyo militariyanka oo xagga saas u timid laakiin ilbaxnimadu waxay ka tagtay koonfurta laakiin haddana hadda maanta muslim baan ahay Soomaali baan ahay ilmahaygu u sii jiro muslim oo ahaado inaan afkiisa iyo dhaqankiisa iyo taariikhdiisa iyo islaamnimadiisa iyo waxaas inaan laga luminin ya ama kushitiga ahaado asalkiisu ama Quraysh ahaado laakiin maanta muslim waxa weeyaan afkiisu Arab iyo Soomaali baa leh taariikhsuna ay tahay taariikhda islaamka okay waa gartay ugu dambeyntii marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan hore u aqriyay book nin hadda magaciisu ay ga baqan yahay oo qoray laakiin oo 1975 yaa la qoray buuggaasi ciwaankiisu wuxuu ahaa bilowgii taariikhda Afrika ya bilowgii taariikhda Afrika buuggaasi soo u socdo dadka annaga oo kala ah ee madmadow timaha jilicsan sanka dhuuban wuxuu leeyahay ama ha ahaato dadkan tawaariqa ah oo kala degan dhowr dal oo Maali degan Liibiya degan Jaad degan Niger qayb ka degan Algeria qayb ka degan oo hadda xornimo raadinaya in isu yimaadaan oo sida maxaan ku raadaan nimankan Kurdiska kale loo kala jarjaray ama nimankan Afarta ah oo Djibouti Soomaaliya Djibouti Eritrea Ethiopia u kala qaybsan saa u dagaalamaya niman la dhaho Saharaha galbeed Polisario oo Morocco ay haysato nimankan la dhaho nimankan Mauritania la dhaho qayb kamida Jaad Soomaalida Ethiopia niman la dhaho Suudaan degan oo Beja la dhaho niman gaal la dhaho Nubiyiinta dad saasoo soo taxaya wuxuu leeyahay dadkan waxay ku abtirsadaan wax la yiraahdo kushitik waxayna ka yimaadaan koonfurta dalka Masar beeraley ahaayeen example waxyaabaha aan arko kadib aan arkay buuggaas waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Masar Anwar Saadaat ma ahan sida ninka la yiraahdo kale Xusn Mubarak oo kale ma ahan ama Jamaal Cabdi nacad ma ahan nin anaga noo ego ahaa ya nin anaga noo eg ayuu ahaa marka afiiriso Afrika kale xataa habka siiqada muusikada iyo laxanka xataa isku mid ma nihin waa kaga duwanahay ninkaas wuxuu leeyahay kushiti of group waay dhinacaas uu ku abtirsiimaya marka adoo soo koobay marka fiirso marka in dhinacna kushiti aan la shay dhinacna carabnimo aan macnaha aan ka noqono bal labadaas arimood maadaama aad qoraato carabna aad ku soo dhawlay Masar aad joogtay ahraamtii aad soo aragtay bal arimahaasi maxaad macnaha aad aragtay ahaan maxaa ka leedahay waxaan ka leeyahay horta kushiti iyo wax Arabiism wax la sheegayo kolba waa ilbaxnimo xilli jirtay sax kushitigu ma aha oday lagu abtirsanayo ya waa boqortooyo iyo ilbaxnimo jirtay xilli oo waliba ka jirtay bariga Afrika waxa la yiraahdaa Suudaan Soomaaliya dhulkan ay ahaayeen taasina way jirtaa waa sax tanna way jirtaa waa xilli taariikhdu walba step bay jirtaa maanta waxaan joognaa inaan nahay dad muslim Arab shalay waxaan ahayn dad ilbaxnimada kushitika faraacinada Azaniya wixii loo yaqaan wadanka Baartay ayaan ahayn labadu midna abtirsiin maaha waa dhaqan iyo taariikh shalay hadaynu aan ahayn kushitik
oo aan ahayn dadka geeska Afrika degan takramid baan ku sheegay muuqaalku qiimo laha berberiyiinta maaragtay dadkan barbarka la yiraahdo waqooyiga Afrika degan u badan waa xamitig waa Falastiin Suuriya Urdun dadka xagga degan Kancaaniinta la yiraahdo maaha Carab maaha geeska Afrika degan bariga Afrika waa xamitig baa dadkan maanta Etoobiyaankan dadkan axmaarada iyo dadkan waa Semitic waana isku muuqaal beenahay muuqaalka waxa bedela deegaanka cimilada waxa weeyaan maxaa la genetica oo waxa weeyaan waxa laga yaabaa marka dadka iskursiga barbarkii markay dhex galaan European iyo umaro kale dad ay blue oo kala kala soo baxayo soo garamaysa waxa laga yaabaa annaga marka imanayna inuu si kala marka muuqaalku waxa weeyaan deegaanka maanta waxaan qof Soomaali oo Yurub degan oo waxa laga yaabaa in qof ajnabi guursado ilmihiisu inuu hooyadu ekaado kana ekaado taasi qiimo laha laakiin tan nuubinta iyo beerashadiisa waxa weeyaan Nuuba iyo Bicha iyo Suudaan tan waqooyi iyo waxaan maaragtay waxay ka dhasheen geeska Afrika nin waxa jira Senegalese oo anda diyub iyo la yiraahdo oo aad doodo badan ka sameeyay sababtoo waxa jira dadkan Mediterranean Sea-ga waxa degan dad Yurub xagga shaka degan waqooyi waxay ku doodaan in ilbaxnimadii masaarida iyo waxa iyagu ay soo gudbiyeen kadibna ay Afrika tagtay laakiin ninkaas oo Sorbonne University ka tirsanaa baa wuxuu qoray in ilbaxnimadani ay ka timid dhulka maanta Soomaaliya la yiraahdo Eritrea soo socotay biijaha si qaadan kadibna ay Masar saa u gashay marka eegtid qaabka muuqaalada masaarida ka soo haray waa muuqaalka qofka Soomaaliga ah waxaad ogaataa dad waxa jira muuqaal gaar ah xayndaabkan geeska amaartay Nuuba ka soo bilow ilaa Soomaaliya waa dad adduunyada ka duwan waxay dadka inta la uuriyo maartay in madax laga dhigo adduunyada ay daawato Soomaaliya inayada maartay qof aan ku jirin indhayar iyo madow iyo cadaan iyo wax walba laga helayaa sababta Nuuba ilaa Soomaaliya waa meeshii adduunyadu ka bilaabantay u fiirso Afrikada kale waa isku nooc in China iyo waxaan waa isku nooc dadkan kale ama taqaanaa qowqaska waa isku nooc laakiin Nuuba ilaa Soomaaliya waa dad gaara dad dhudhuban sanda dheer midab maarayna leh waxa weeyaan originalkii adduunyadu ay ahaan jirtay ay weli haystaan marka in iyaga la daawado oo la yiraahdo halkaas aan ka soo bilaabanay ka indhaha yar iyo kan indhaha buluuga laba meesha ka soo unkameen baa ah dadkan وحقاق آدي يوم هاتسين كاس وحوها أستاذ عبد الرحمن شيخ محمود السيلعي oo toddobaadkan marti igu ahaa barnaamijkii qalin iyo qoraal oo aan ku soo qaadanayay muugiisii canka ahaa oo ugu magac daray carabnimada Soomaaliya iyo ilbaxnimada Islaamka daawadayaasha aan jecelnahay oo dhammaan anagoo isku duuban waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo